muddo markaas xiriirkan wuxuu soconayaa يعني 4 سنة maadaama 2014 ilaa iyo high school kan soo dhameeyay aan sameeyay xiriir lahayn oo intaas oo dhan markaas aan xiriirkeena u soo socday kalsoonidii iyo wanaagii iyo jacaylkii faraha badnaa aan beernay awgiis aan waxaan ku kalsoonaa Samira in aan markaas aan midoobi doono nolosheenana aan halka ka sii wadi doono ugu dambeyntii habeen waxa dhacday marka aan gabar walaasheed oo marka gabadhaas mar walba ay sheegayo Faaduma la dhahaa Faaduma la hadlay waxaan ku radaa Samiro telefoonka muddo 3 bilood ah iyo aniga iyada xiriirkeenu ma wanaagsaneyn marka waxaan sameeyaa ma imaartay isku kaay xirtid oo arinta ma ka shaqeeyay baan ku dhahay saaxiib yal soo dhawaada meel walba joogtaan halkan waa Meeraysan Media ku soo dhawaada barnaamijkii qisa iyo qoomamo waxay inoo socotay sheekadii Umar Cabdi Shukri iyo gabadhii aadka u jeclaa ee Samiro sheekada qaybtii koowaad Umar wuxuu kaga sheekeeyay asaga iyo Samiro sidii isku barteen ilaa heerkoodii iskuulka iyo sidoo kale xaafadii ay darsi ku ahaayeen ee magaalada Gaalkacyo haatan Umar waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho sidoo sheekada qaybtii hore ku sheegay Samirna waxay aaday Jigjigo iyadoo halkaas u aaday jaamacad inay ka dhigato jacaylka Samiro iyo sidoo kale Umar marka waxa soo kala dhaxgashay masaafo kala fogaansha saacadii qaybtan Umar wuxuu uga sheekeyn doonaa qisada qaybta ugu xanuunka badan iyo sidoo kale isagoo ka sheekeyn doona markii ay wada socdeen Samiro markii hore sidooda iyo sheekadooda inay ahayd mid wanaagsan sheekadooda laakiin hadda ay noqotay in Samiro xiriirkii si tartiib inay u goynayso waxyaabaha cajiibka ah ama xusida mudan oo Umar uu kaga sheekeynay qaybtan ayaa ah inuu la xiriiray familkooda hooyadood walaasheed iyo waliba walaalkeed oo ay isku barteen Muqdisho oo ka wareystay xaalka Samiro iyo inay u soo celiyaan xiriirkii uu la lahaa Samiro ama ay war ka siiyaan hasa ahaatee intaas oo dhan uma suurta gelinin familkuna jawaab fiican kama soo helin waxyaabaha kale oo ka sheekay Umar waxa kamid ah ama qaybtan uga warrami doono xiisaha leh in ay Samiro nin kale oo Jigjigo isku barteen uu qodba siraystay waxaana ku soo bixi doona uur halkaas ayna qisada uu ka sii wadi doona Umar bal markaan aan ka dhageysano Umar sheekooyinkaas ku saabsan qisadaasi iyo sidii ay wax noqdeen qisadan waxay ahayd qisadii igu xanuunka badneed ee noloshayda aan soo maro Samirana hadda waxay jirtaa Jigjiga waxay dhiganaysaa jaamacad Jigjiga University nafada wadeetahay adoo daadahayn kara inaad uga gurataa waa ku dadnimo xumo nafsi baana ku dihey anigana waxaan imaaday Muqdisho sababta marka aniga Muqdisho u imaaday waxay ahayd inaan waxbarashadeedii heerkii labaad ama heer koowaad ee jaamacadda in halkan ka sii bilaabay maadaama high school ka soo dhameeyay muddo markaas xiriirkan wuxuu soconayaa يعني 4 سنة maadaama 2014 ilaa iyo high school kan soo dhameeyay aan sameeyay xiriir lahayn oo intaas oo dhan markaas aan xiriirkeena u soo socday kalsoonidii iyo wanaagii iyo jacaylkii faraha badnaa aan beernay awgiis aan waxaan ku kalsoonaa Samira in aan markaas aan midoobi doono nolosheenana aan halka ka sii wadi doono laakiin nasiib xumo markii aniga aan Muqdisho imaaday Samiro waxay mareysay heerkii jaamacadda 2 sano u dhamaatay 3 sano ahayd sanad ayaa markaas u harsanaa 3 sano ay jaamacadda marka 2 sano ayaa markaas u dhamaatay nasiib xumo marka waxa dhacday in markaas telefoonkeeda horta uu sidii hore aan isku ahaan jirnay si ka duwan markaas xiriirkeen uu noqday يعني xiriirkeen wuxuu noqday mid ma garanaysaa gaabis ah oo يعني waqti walba aan isla hadli jirnay iyo si walba aan isku hadli jirnayba inta badan ay meesha ka baxdo aniga marka maadaama kalsoonida aniga ay ku badneed anigana jacaylkana aan u qabo Samir aan islaha kaas mid lamid ay ku qabtaa wax dhibaato ah kama aan soo qaadin hayesh maalmihii ugu dambeeyay barnaamijkii uu sii bedelay waxa la gaaray heer telefoonka ay Samir iga qaban kari weydo oo xataa intaan wac telefoonka mararka qaar markaan inta waco miskoola badan inta raxta qoraal WhatsApp kan inta naga diro Facebook wax walba inta naga diro mar leeyso jawaab la dhaho waskar mashquulsana ama waa hurday waxyaalo noocaas oo kale ay soo qoro adiga markii muddo 2 bilood barnaamijkaasi saa ku soconayay waxa dhacday inaan kala tashto wayla gabar kale oo walaasheed oo markaas Nairobi joogtay
waxaan ku raadiyay walaalay hablaayo maxaa ku dhacayaan yani miya xanuunsan tahay iyo wax saas weydiiyay waxba ima sheegin caadi leh aniga marka waan dareensanaa in markaas yani wax ka khaldan yihiin oo maadaama xiriirkeena sidii hore uusan ahayn ugu dambeyntii waxay gaartay in xiriirkeennaba ay jarto oo xiriirkeena ay istaajiso oo taleefankiiba ay bedelato oo taleefankeedii dhan ay xaggayga iga xirto أنا حسب مركها مدة لبا أسبوع مركز سهاد وأنا حر لسه مي قبلي مركز جوجي مشان ليرادو نيروبي لأن عادي وهاي وحبة كم خلدنا سيدو كله وحن وعي مامدا هويدي وقال حي جوكتا أيضا سيدو كله وحاوي صاحبها هاي وقا إسنقانا يدي ما دام قبل 4 سنة من حر نقدر حي فاميل كله واسكوان واسكرين دمانتود maamada markii sidoo kale ay sheegtay waxna wax dhibaato ah oo gabadhaasi haysta inaysan jirin ba ay sheegan dhamaantood laakiin xagayga only caqabado ka jirto ayadoo sida xaaladdu ay tahay anigana aan magaranaysa runtii aan keenid jabay oo aan leeyahay kule ido baadi waxa ay ku maqan tahay sheegi doonta adigu magaranaysa iska yar samraasidkiis waa helay Soomaalidu dhahdaa marka adiga xaaladda sidii iska sii ahayd muddo 3 bilood ah ugu dambeyntii habeenada kamid ah baan taleefanka si kadiisa iga qabatay markii ay iga qabatay waxaan ku raaday waqti badan ayaan xiriir lahayn nolol iyo hadaf iyo himilo badan oo aan wada dhisnay baa jirta maxaas u yeelaysaa hatta hadii aad magaranaysaa noloshana aad doonaysaa inaad ka baxdid maxaad magaranaysaa aasitan u yeelaysaa caadi ma igu sheegtay baan ku irahday adigu marka waxba wali iimay sheegna boo waa iska mashquulsanaa adiga kalsooni daraa ku haysa leeg wax noocaas ay sheegtay caadi iska dhig wax noocaas ay ku tirahday ugu dambeyntii aniga arintan ka siinay jabay oo kalsooni darro igu riday runtii waxaan aaminayba in magaranaysaa waxa kan aniga aan sameeyay ay tahay wax aniga kaliya kooban oo aniga kaliya naftayda ay ii sheegayso inaan maartay jacaylka kaliya ku ahay ugu dambeyntii habeen waxa dhacday marka aan gabar walaasheed oo marka gabadhaas mar walba ay ii sheegayo Faaduma la dhahaa Faaduma la hadlay waxaan ku radaa baay Samiiro taleefanka muddo 3 bilood ah iyo aniga iyada xiriirkeenu ma wanaagsaneyn marka waxaan sameeyaa ma maartay isku kaay xirtid oo arinta ma ka shaqaysid baan ku dhahay laakiin way ka gaabsatay oo waxay tiri midayada u sheegtay waxa ku tiraahday baay ninkaas yani zaid isku ma haysan ka dhacay ku dhahday iyo in kala ma garanay yani kulay gabadhaas way ga jaakartay markay jaakartay kadib ayadoo halkaas barnaamijka oo imarayso habeenada kamid ah waxaan la hadlay Faadumo anaga khadka iska la hadlaynaa waxaan iska weydiiyay bal inay ii sheegto qof ama labo oo khadkiisa maartay khadka isticmaalo oo Samiiro la dhashay waxay ii sheegtay marka yar Maxamed la yiraahdo oo walaalkeed ah oo jaamacad oo ii sheeg Turkiga u socdo ama Muqdisho jooga ii sheegtay lambarkiisa ii soo dirtay waxay tiraahday yarkaas Maxamed jooga ama la hadli kartaa way ugu dhacday أنا لا قف حجالة أنا هاي قام وحن كجاري مركه إن محمد الله هذا هو برنامج كان عن الشيء هذه وعي محمد والله الله وحن كور هذا نيو نينو عاصنا هاي ناكل كل معربة هاي يقول هاي ما معلم بوحن اسمي قد شرف اسمي قصكم كاسمي محمد برنامج كي بانو قاعد وحن كور نيو أنا جاي سميرو حير دير بنا قاعد حي 4 سنة qoftaasna wax walba oo hori kara oo naftayda aan jecelahay waxaan ka codsanayaa marka muddo oo 4 bilood had ku dhawna wax xiriir ah oo aniga Samiiro dhexmar ma jirto at least hatta labadii bilood barkii ugu horreeyay hatta taleefanku iga qabanaysa ama khadka marmariga isku jaabisay hadda hatta caadi ba xiriirkan u qaybaan ku dhahay ma garanaysaa sabab aan kulli wax khalad aan sameeyay ma jirto يعني wax ayada xageedo aniga aan ka galay ma jirto balse kale iyada xageedo wax ka yimaado waaye waxa ka codsanayaa baan dhahay barnaamijka inaad ka odiysid hatta aniga wax walba hatta lacag ogolaan ku dhahay Maxamed barnaamijkaas iigal adiga barnaamijka Maxamed hayo markaas ugu dhahay iga tigay
kadib inuu haddana asaga laftigiisa ka mid noqdo gabar walaashiisa maxaan ku dhahdaa wax hadda macquul oo yani ula tago mid garan waayay kadibna straaskiisu sii watay meesha u socday iska sii aaday aniga marka halka xaaladii marayso oo walaasheed aan wax qoftii Nairobi joogtay Faaduma ahayd wax ii sheegi kara weyda fiican aan ku qaanco maxamed saasoo kaleeto maamadii hooyo saasoo kaleeto iyadana xaaladeeda ay maartay waxba sheegi weyday tala gabadheed iska caadi waay ay u dhahdo ayna telefoonka iga qaban kara weyday aniga waxaas dhahay marka ama iska sugtaa laga yaabo inay ku soo xasuusto ama inay kula soo hadasho laga yaabo iska sugaas ah daimada qofku nugul isagoon damna furin insha laga ogaada ruux jacayl ku daashaday adigoo daldheeriyo dibadiyo kuma qayro isna waxaan dareemaa nafta inaad la daristahay